madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo halkaas oo ay ka socoto doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo baxaya deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Ceelwaaq ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo maamulka magaalada. waxaa madaxweynuhu tagay halka ay ka socoto doorashada deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee lagu dooranayo xildhibaanada loo asteeyay gobolka Gedo inay ku matalaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu goobjoog ahaa doorashada hal kursi oo ka mid ah kuraasta maanta lagu doortay degmada Ceelwaaq isagoo u kurgalayay habsami socodka doorashooyinka. ayuu madaxweynuhu uga mahadceliyay guddiga doorashooyinka ee kala duwan dadaalka aan kala go' lahayn ay hawsha ku bixiyeen. ku imaado Ceelwaaq iyadoo muhiimaddu ay ahayd bal doorashadiina inaan saan markii hore ballan qaadnay inayna ka halin Ceelwaaq doorashada maanta Soomaaliya ka dhacaysa gobolka Gedo mar haddii garbaari ay suurtageli weyday inaan Ceelwaaq aan soo wareejiyo. dhanka kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in goordhow degmada Ceelwaaq laga hirgelin doono golaha deegaanka iyo mashaariic horumarineed oo ka mid yihiin dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada. laakiin waxaan rabaa inaan hadda idiin sheego Ceelwaaq waxay noqonaysaa meeshii ugu horreysay ee councilka laga dhiso gobolka Gedo. waliba hadda haddii aan rabadaanta ka baxan haddii la yidhaa inay idiin dhiman doonaan barnaamijkaas waa diyaar. councilka haddii la dhisana barnaamijka mashruuca GBLG isagaa wata xafiisyada dowladda iyo xabsiyada iyo kulli wixii mashaariic dhismaha mashruucaasi ku hoos jiraan. waayo waa maamul la daadejinayo oo aan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo laamaha dowladda oo dhan wax idinku aad iska soo dooranaysaan. waxaa keliya ee gobolku stateku soo magacaabayahay wuxuu noqon doonaa taliyaha ciidanka taliyayaasha ciidamada ama booliska ha noqdeen ama daraawiishta ha noqdeen. laakiin maamulka intiisa kale maamul hoose oo councilka uu leeyahay oo degmadu iska soo dooratay oo ay la xisaabtamaan odayaashii oo gole ay leeyihiin oo golahaas ay guddoomiye iyo ku-xigeen dooran doonaan. taasaa la idiin dhisayaa. Maxamed Xuseen Salaad, Jubbaland TV, Kismaayo.